يو يهي نينك الشيخ محمد عبدي أمور كأقوم بدن صوماليا هلاك كان أنيق هلاك كانوا نتيجة كسو قرأ فكر كينا يا قلدان شيخ أمولي وزير خديجة أصغو قدال آريك سيديني ضدبا أمام الملأ إيا محفل انت استايقين أي وحي كسو دولين آذانك إيا مساجدي بارلوانك صوماليا فدان برا بلشادة سيديدي بلوضو عن كجري وير العرس بالليقوهاي كابتن أيوبنا وأمهد علينيا كابتن أيوبنا وأمهد علينيا دادبا أنيقا شانتاي يغيري مسلمين ما شيغانا يا مسلمين وحما قريه صوماليا شريعة إسلام كما رقمي كرتو ما قاد كرتو كتاب كالله يسنه النبي صلى الله عليه وسلم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعربائنا براروجيو وحي يقادا تلمام يوانا قود اوكو بيغان دادك مسلمين تا زمن كان هذاك دادك مسلمين تا يكو جران نبي صلى الله عليه وسلم نو تلمامي كن يافر بقوله سنة قهر ايا وحار هوا بلينان سيقار سوكوبو وحار هوا وانذي وايلكي سوماليات العلامة برونشيكي سوماليات شيخ محمد عبدي oo u diray wasiir Khadiijo iyo qayladii ka dhalatay ayaa rabaa inaan wax ka tilmaamo wasiir Khadiijo waxay ka mid tahay wasiirada saameynta badan ee dawlad kasta oo federaal ah oo Soomaaliya dalka ka dhalata ay ka mid tahay waxay tiri masteexa haday ahaa lahayd oo aan qaada lahayn waxaan rabnaa wasiiradu waxay ka mid tahay golaha wasiirada wasiir Hamza وزارة دينتي iyo awqaafta iyo wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dalka waxaan rabnaa inay diyaariso dad nagala doodi karo qofku markuu yahay al-mujaahir bil macaasi in markii la rabo in loo nasteexeeyo asaga la xiriiro ee si hoose wax loogu sheego haday banaan tahay in dad nagala doodi karo ay diyaariso qofka ugu horeeyay hor fadhiisanayana waa aniga shantaay khilaaf kama taagna qofku hadoo macaasida banaanka la yimaado in umada looga digay wasiiradu sheekhu halkii ay ku habooneed buu mariyay waanadeedii waxaana aad u wanaagsaneed inay waanada sheekha qaadato falcilintii ay ka sameysay waxay cadeyn u tahay wasiiradu inay diyaar u ahayn wax waana oo dawladda federaalka ka baxsan inay qaadato shariicadu islaamku gabadha muslimada haday shanta waqti ay dukato ramadaanka bishii sanadkii hal mar ay soomto amaanadana ay gudato حجابك يا أسرك إنكرتو قرآنك وحو كهد لي مصير كاس إني قف كاس وأهل النار يهي قرآن كان لو ميلاد بيكوتي ماذا عذابك متكي سعدك قرآنك أنت كورقة والله ميلاد بيكوتي ماذا مر وحي كتي ميدي سورة البقرة مرنا وحي كتي ميدي سورة غافر الله رب العالمين markuu ka hadlaayay fircoon iyo dadkii ku raacay xumaantiisii iyo duqyaankii iyo gaalnimadii iyo kufrigii iyo risaaladii nabi muuse oo ka hor yimiday alla wuxuu yiri adkhilu ala fir'auna ashad al'adab kalimadan marka cadaabka daran waa aayada koowaad weeyaan الله جل وعلا سورة البقرة وحكوليها أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض قرآن كبر مياد رمين إيسان برنا مكو قالوا إيسان وما إنكر إيسان الله مركب محويري روح سيدا سمايا أي قرآن كبرقاتا برنا إنكرا
alla wuxuu yidhi ilaa ashaddi alcadaabi wama allahu bigaafilin camaa tacmaluun. cadaabka kiisa daran ayaa u sugan, allana mid hilmaamsan oo gaafil ka ah camaladiina ma aha. wasiir khadiija hadalkeeda markii la dhibciyo waxay caddaysay dowladda federaalka Soomaaliya waa sida iyadu hadalku u dhigtay haweenka ku jiro oo dhan inay yihiin kuwa diinta islaamka ka aradan. waxay tiri agaasimayaal hadday yihiin, hadday senatare yihiin, hadday xildhibaano yihiin, hadday wasiire yihiin, wixii haweena inay qaawan yihiin, libiskooduna uu yahay sirwaal. khadiija cadaysa, ummadda Soomaaliyeedna markhaatiye ka tahay. nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay dhulliga wuxuu u sugnaaday calaa man khaalafa amri, ruuxa aniga amarkayga khilaafa ay idaba mareeya. allahu rabbulcaalamiina suuratu lbaqara wuxuu suuratu nisaa aayadda 115 wuxuu ku tilmaamay ruuxa nebiga sala allahu calayhi wasalam khilaafa ay wuxuu la yimid ay ku cuslaadaan ay wax kale jeebkiisa kala soo baxo inuu ahlu naar yahay. waman yushaqiqi الrasuula min bacdi ma tabayana lahu اlhuda wayattabic gayra sabiili اlmu'miniina nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannam wasa'ad masiira. alla wuxuu leeyahay waman yushaqiqi الrasuula qofkii khilaafo nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam min bacdi ma muddo dabadeed tabayana uu u caddaado lahu manka alhudaa hanuunka oo wayattabic raaca gayra sabiili lmu'miniina mu'miniinta jidkooda jidaan ahayn nuwallihi waxaan gacal kaga dhigaynaa maa tawallaa ciddi ou gacalsado. halkuu ku dabamarayaa masiirkiisu muxuu naqani, abaalkiisu muxuu naqani, wanuslihi jahannam wasa'ad masiira. alla wuxuu leeyahay jahannamaa xumaatay. daciifnimadiina iyo awooddiina iyo adkaysigiinaan ka warhayaahoo midka nii abuuray ee niila ayaan ahaye alla wuxuu leeyahay jidkaa ka jooga. waxaa ii hartay habar sacdiyo markii ka soo laabatay safarkii ay ku tagtay Garoowe, niman aradan oo siyaasiyiin ah ayaa waxay ku soo dhaweeyeen airbortka, mid ay gacan qaaday iyo mid ay xawad ka saartay iyo mid ay daanka ka dhunkootay raggi ka dhigtay. gabadha muslimadda intaan ka warhayno ay diintayda u dhooratay ay rabto inay diintayda si buuxda u daryeesho waxaa nebi u ah nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam. dhaqankii nebiga muxuu ahaa? caaisha la weydiiyey, waxay tidhi wamaa massat yaduhu yada imra'atin qad ilaa imra'atan yamlikuhaa. wamaa massat ma taaban, waa nebiga sala allahu alay wasalam, yaduhu gacantiisa yada imra'atin haweeney gacanteyda, qad weligiis ilaa imra'atan yamlikuhaa, haweeney ou hantay oo asaga u bannaan mooye. nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu haweenka ku soo baxa iyakoo jamaaca oo meel fadha gacanta u haatinay uuna salaami jiray. markuu rabo inuu heshiis la galo yubaayicu الnisaa bilkalaam, hadalkuu nebigu sal alayh wasalam heshiiska kula geli jiray haweenka. marka gabadha dhoorsoon amba beesheeda siyaasad ha ku matasho amba gabar jaamacadaha Soomaaliya baraka ha ahaato amba haweeney dhakhtarada ha ahaato, nin ka ajnabiya ma taawato gacantiisa. nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay oo kale haweeneydii gurigeyda meelaan ahayn xijaabkeyda ku dhigata ay isqaawisa ay sirwaal ku baxda ay maxfalka iyo goobaha isdhigto
waxay nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam waxay dilaacisay إذا إيا الله أسترك إي حجابك أدحيي بيد العيس حديث كأبي داود وكسوغين وعرى مركا إنا لوقف مهد عليا حالا يوردن وحالا وريجينا يي أو لا ترتم لو سمينا يي شي محمد يو وزير خديجة صحنا معها بلشة مسلمة نكمها بونا لكن وحرب أينا نمهد عليو نين أبوان أو حال الله يسوع درو لي رادا هنمال ميديا ونمهد علينا نين كأبوان براها بلشة دتك كجرا كميدا سيقروح بدنا وهاد لي ومدى صوماليين نفرين بودري وحوري مايشو سياسة يا ما ديسي ما هني دين بيجوكتاه دين تهلا إلى شغل منافقي منصر هاي إيه متكلوا إلى أحمد سعيد أو أصنع الشيطان كلا وحولي هاي كموتيجا كسو قرأ فكر كينا يا قلدان شيخ أمولي وزير خديجة يا قر أصمي يا قر أصمي شيخ وزير دوالو نستحيي واجب كيدو وحوها بني آدم كإلهي وحو أبوري وحو نو أبوري ما مركا قار إنا كفكفنو إنا دعنو إنا الحوغا يرس سنبري ريحانو لكن وحالو بهاي مركي اللقوير هذا يعينا استايقي كرتو وحيرو إيمان هديكو قدام بيان وحاك الله روينا ومهد عليو قفكي سي أسطران أو حشود لأوها اللي قد يدان أي دين تهلا إلاليو إيه عدي أن وحان شحك بحسن كجا هذا الشيء إيه ده يسدين تهلا إلاليو هلو رقمه يا ألالجو جوين وأنو مهد علينا كابتن أيوبنا وأنو مهد علينا كابتن أيوبنا وأنو مهد علينا وعروا أمد الصوماليين ما أنت فرين ودرو حلي أدق بالوجرة أو إسلام كلا قرسنا يو أو شريعة الإسلام كقرقن كيدا يسنة النبي صلى الله عليه وسلم للذا قال ما يه دتك حق أدين كان ما أنت إيهين دت تارجت أو لقرسنا يو أو أمدا يعني إلى الفربدن لجو إيجي مرة بتا وح إلهي أكتي سكويا لإن أدوجاته هذه كان كلها الله يا إلهي سنة إذا ودونا جواب ها هديتهاي ما جعشها الله رب العالمين إنه كود ومر حسن القاتمة جواب ها هديتهاي ماش قف نجم إذا مؤج ماشوا كودم بينايا لكن النبي صلى الله عليه وسلم ميزانه نسي هداد إلهي جعشها ميل ونكسن بتقدم بينايسا محا إلهي لو جعل هذا وحا إلهي لو جعل هذا أمر كيس أو سب وحد الله قاطه لو نقاطه طريق النبي صلى الله عليه وسلم يسحب ديس حديث النبي محوي من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده من أراد روحي دونايا أن يعلم إنه أغاده ما له عند الله ألا أكتيس وحوياله أو أوال مرينة أو ثواب أو كفرحه فلينظرها إيغو ما لله عنده أذيك ما أنت الدنيا جوغا أي مال كذب الدنيا مسافر كاه أي كسفر دونا أي جديد كاه محا إلهي أكتيس أكتاد الأويالي أذيك أكتاد محا الأويالي اللهم جعشهاي دينتي سما جعشهاي وحول بحق مكالا قالسينهاي نفط هذا كبلو والدين تادو كحجي حاسكاغو كحجي عرور تادو كحجي كوا وذا شقينتو نيغا دحيس كحجي هكو دورسن دين تاد اسلام شيلماد يرو لوغو سيو قف بني ادم او رالي جلسو اديغو الهي كعريسيناي اسكا الالي انيغو نين بدن لحيران اهي هذا أنت براها بالشدة كجري
maalinkii ciida maalinkii ku xigtay niman diyaas baraa iyo niman xil haayo ayaan la kulmay. waa labada shay oo kusoo gabagabay doono, labada yar iga qaata. dad baa aniga shantaaya igu yiri muslimnimo sheeganaya, muslimnimo wax ma qariye, Soomaaliya shareecada islaamka kuma dhaqmi karto, ma qaada karto kitaabka alle iyo sunnaha nabiga sallallahu alayhi wasallam. maxaa diidayaan koori? waxay dhaheen hal jawaab igu jawaabeen, laba qodob. Soomaaliya adduunyada kama go'i karto, adduunyaduna kitaabka ilaahay iyo sunnaha ma rabto. xil umadeed bay hayaan dadka warka aniga ugu yiri, way nool yihiin, way i yaqaanaan, warkaana way maqli doonaan. muqdishoy joogaan. gabadha guddoomiye ku-xigeenka ka ah Sacdiyo warkeeda markii la dhibciyo gaalnimo cad waay. wadaad la yiraahdo dulmidiid baa ka hadlaya, khayr Allah siiyo, baraha bulshada dadka xasilan ee nabadoonada ah ee khayrka ka shaqeeyo kamid yahay. laakiin sidii looga baahnayo uma hadlin. qofka horta intaan la dhihin toobadkeen muxuu ku dhacay, waa in la dhihi karaa qofkan gaalnimo ku dhacday. qofka muslimka caasi wuu noqon karaa, faasiq wuu noqon karaa, zino wuu ku dhici karaa, laakiin hadduu zinada banaysto ummadana oo u baneeyo wuu ku gaaloobaya. wax shakiya iyo wax khilaafana kama taagna. Soomaaliya in zinada loo ogolaado ayaan rabaa, gaalnimo cad oo aan geed loogu soo gamban waay. kelimadeyda ugu dambaysa, wadaad Soomaaliyeed ee Soomaaliya inuu dagaal oo wax garta oo damiir leh oo iimaan leh oo caqli leh ay Soomaaliya inuu maanta waxa ay ku jirto ay ku sii jirto ama ay ka dhacdo oo ogol ma jiro. waa jawaabihii wasiir Khadiijo weeyaan. ceelasha la gubay, dadka la laayay, caruurta la agoomaynayo, abaaraha Soomaaliya ka jira, colaadad isdaba gashayna daashatay, intaba wadaad ogol ma jiro. laakiin burburka iyo abaarta iyo dilka iyo badaha lagu daadanaya iyo xasuuqa maalin walba ummadda la xasuuqayo waxaa ka daran in diinta laga saaro. wal fitnatu akbaru min al qatl. diinta oo laga fidneeyo ayaa waxay ka weyn tahay in lagu dilo oo naftaada weyso. waxaa ka dhow oo ka fudud adigoo muslim ah ama muslimad ah, diintaada haysto, diintaadu ku daryeelan tahay, Allahu Rabbul Aalamiin raali ka yahay, Allahu Rabbul Aalamiin inaad raali geliso adigoo ku hoolan inaad dhimato, taasa ka qaalisan. madaxweyne xasan sheekh maxamuud maalinkii oo masjidka cali jimcaale oo ku dukanayay balanqaadkii iyo kelimadii uu yiri baan ka sugaynaa. dawladdu waxay ku hoolan tahay xifdu nafsi, waxay ku hoolan tahay xifdul maal, intaaso waxay ku hoolan tahay xifdul aqli, sida ay shacabka Soomaaliyeed naftooda ay u ilaalin lahayd. waxay ku hoolan tahay xoolahooda siday u ilaalin lahayd hantidooda. waxay ku hoolan tahay dawladdu siday caqligooda u ilaalin lahayd. intaa waxaa ka horeeya xifdu diin, wax ka horey kara ma jiraan. waxaan codsanay ummadan in diinta Ilaahay loo ilaaliyo, ummadan inay Ilaahay heshiis la noqoto. Soomaali heshiis ah, ummadan heshiis la waxay ku xiran tahay ummad Ilaahay heshiis la. baarlamaanka Soomaaliya dadaan xilka ummadda aan munaasib ku ahayna ka buuxo. dad aadaankii quursada ku jiro, aadaanka waa war ibliis boogtahay. nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri
إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان آذانك مركي اللغو دواغو أو اللي يرادو حي على الصلاة شيطانكو دبر جيديا أصغو قدال آريك سيديني ضدبا أمام الملأ إيا محفل انت استايقين أي وحي كسو دولين آذانك إيا مساجدي بارلوانك صومالي فردان ضدبا وحي كسو دولين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حل أمادات بي أترتمين وكرسي صومالي يقسريي ما أنت بارلوانك صومالي فردان ضدبا وحي رهدين رقو وحي اسكا دونتو هواينكونا وحي اسكا دونتانو بارلوانك صومالي فردان مالين قبيل يري إيا قوس يري إيا مدحوين يري إيا رئيس الوزراء يري إيا قرصار يري حل أمداد لقومة ديبي كرو وركان باكا عي مال محفل أو أمدو اسكوغوتي مادو أو أمام الملأ أو قبوين ونكاغا دعي سيدا درتيد رالي أهو ما دام أمدي عقيدة ودي دين تودي أتكسو دو شيء نيري مهينو بارلوان كيف فردان بل waxay doonayaan xil umadad inay qabtaan midkay hadda hayaan mid ka sii weynay doonayaan markay isdiintu waxay naqatay meel lagu shish bartay naqatay dadka baraha bulshada ku jiro waxaan leeyahay maanta jaanis baad haysataan waxa laga yaabaa biri inaad weysaan caafimaadka uu niidiido adduunyada aad ka tagtaan aniga idinkaba maanta diinta ilaahay difaaca waqtigiina diinta gashta وقتينا دينتا قشتا إن شاء الله تعالى قفكو هدو المجاهر بالمعاصي يهني فرطا لغو في غيا وعن كسو قبيني براه بلشادة سيديدي بلوضو عن كجري وير الحلوس باليقو هاي وحال لقد لقي وحانيقي إيقارا أقونتو نكو محرنا إنا نين وينتهي إنا نين يرتهي نين دالين يراه أو أدلة أصلية عن استعمالين الأدلة الأصلية وكتاب كي السنة مركاني عدي نين عن استعمالين أقولنا أن الله هين بالي دقاي مركاسا waxaa leedahay maxaa gabdhaha naasooda ku tusay maxaad u soo daawatay maxaa yaa ku dirsaday yow yahay ninka sheekh maxamed cabdi umulka aqoon badan Soomaaliya haleekeen aniga haleekeen قفكو هدي أو المجاهر بالمعاصي يهي فرطا لغو في غيا ليسكما هايو حتى هدو انتا فرطا لغو في غيا أصغو نول اسكدافي مركا إن شاء الله تعالى دين تهلا إلى شدو احرص على ما ينفعك مؤمنو كددا الوحيك وانفعايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته